قرابان أنا كان قرابتين عبد الناصر كان أغون ملي أي فهم فاضل هويدي سامية هويدي حميد إبراهيم شرع عثمان اللي هذا سلان تاسنا يديد معانا عليك على بقى شعب مليها أن كورنتك شقيها وهاي أنا شباب يا مؤمن أنا شعبك أوغي فاضل وي أوغيد إن عبد السلام الشباب وياس بكاوس هبريرتيس أيا صوت ضمينتي oo ka soo wada taman alla magaalada muqdisho markuu soo degay asagoo yar oo xabsiga ka soo baxay garowe waa wax cajiib ah $40 lacag ah lagu kiriyay guri haday wax weyn ahaan lahayd macquulay ba ahaan lahayd kadib sanada ay ku dhex jireen safka argagixisada kana qayb qaadanayeen faraliid ku ah nabadda iyo nolosha shacabka raggan saddexda eedaysane waa soo dhamaatay waxaana weeliya laba dumar ah oo ku gabaadiyay guryo caasimada ku yaal dhammaan shantooda maanta waxa ay hortaagan yihiin cadaaladda si loo go'aamiyo mas'uuliyadda ka saaran dambiyada loo haysto eedaysanaha koowaad 14 jir 2014kii ku biiray qawaarijta Cabdisalaan Maxamed Xasan kuna timid tashkiilinta adeerkiis Cabdiraxmaan Awoowe oo ka tirsan isla maktabka dacwadaha kadib tababar degmada Diinsoor ah waxa uu ka mid noqday caruurta yaryar ee sida xaabada oo kale loogu shubo furimaha dagaalada 2016 ayuu ka mid noqday jabhad ku dhuumaaleysata duleedka galcad dagaal isla deegaanka galcad ka dhacay laguna xasuuqay argagixisada ayuu ku soo gacan galay waana loo xukumay 15 sano oo xabsi ah walow mar dambe loo gartay in wali caruurnimo ay jirto ayna tahay in loo aqli celiyo markaasna hal sano u xirnaa hay'adda elmenbiis oo ka shaqeysan nabadda xuquuqda aadanaha iyo horumarinta dhalinyarada ayaa loo wareejiyay halkaas ayuuna ka baxsaday 2019 isagoona dib u noqday safka qawaarijta una sii gudbay buuraha goolis ee gobolka bari dhagar qabe subxaan lagu magacaabo oo argagixisada u qaabilsanaa kala gudbinta dhul yaqaan ahaa ayaa iska la xiriirka ilaa iyo buuraha goolis lagu tagay eedeysanaha ayaana shaqadiisa hayd cilad bixinta gacanada ciidanka ay ku xiriiraan iyo tababaridda xubnaha cusub ee qawaarijta 2023 iyo muqdisho waxa loo soo wareejiyay qaybta amniyaadka ay ugu yeeraan argagixisadu gaar ahaan xubnaha macluumaadka ee soo ururiya raadadka suurtagalka ka dhigi kara in la fuliyo dilal qorsheysan iyo qaraxyo shaqooyinka uu qabtay ayay ka mid tahay sahminta guryaha saraakiisha indhaynta xarumaha degmooyinka xamar jajab iyo xamar weyne iyo ilku haynta xarumaha laga bixiyo ID-ga niira shaqooyinkaas oo dhan waxa uu ku qabanayay mooto argagixisada ayuu iibisay waxaana uu kafar ka dhiganaya taqasuskiisii lagu baray dhaqan celinta elmenbiis oo ah korontiise taasoo u sahleysay inuu mararka qaar si fudud ku gaaro bartilmaameedyada xuraanka lagu wado maadaama ay meesha ka baxeen guryihii isku raranta ahaa ee uu gabaadka ka dhiganayay lagana soo kiciyay dhulka geheer oo gabaad u ahayd ayuu ku soo degay hoyga eedeysanay Faadumo Cismaan Subeer Cali oo reer xamar jajab ah ayay korona ugu aadan eedeysanay Cabdisalaan iyadoona maalmo kadib u wareejisay guri kira ah oo ay leedahay saaxiibadeed Leila Sayf Farax Ahmed oo ay daris muddo 20 sano yihiin waana iyadoo aan la marin habraaca kiriinta guryaha gobolka Banaadir taasina ay laamaha amniga u sahashay in la helo adiga dhalinyaradii Garowe daciraadta lagu soo dayay kamid ahayd miya ما يعني كينيا كسو بربار inta ya kula taqaana kula joogo قرابان أنا كان qaraabtiin عبد الناصر عبد الناصر shabaab la shaqeey jiray dhahay markuu sidoo waqti taga dhahay عبد الناصر هي أنا reer kan hadda hooyadiisa waxa way ani ayeeday ee walaali ayeeday waa mugtahay ya dhala Cabdi Naasir ya dhala muddo isku keen dambeys Cabdi Naasir hooyadiis ma xiran saas ay la tahay saasi kula tahay macna mar hore aan isku keen dambeysay anaga ismaana baranin mar dhow la is baranin isla maana soo korin macna Cabdisalaam maxkamada joogtaa sax hadalka soo fududaado wajahada loo fahmo waxa fiican waxa iska riixiisina iska riix laakiin wixii jira inaad sheegto qofkan ala joogto ma dhahay inuu waladkiisa u maleeyahay ima qaban hooyadiisa dhitaa ma leeyahay hooyadiisa waay difaacidii zaid kula tagin waxaan dambiga ahayn ka sheekay zaid ma ahande Cabdi Naasir tee hooyadiisa ay faham Faadumo hooyadiisa miya Cabdi Naasir hooyada ma ku jirtaa hooyadii Xamiid Ibraahim Shir Cusmaan la yiraahdo islaantaasna eedadeedu macaan tee Faadumo ayda ninkan ma taqaana ninkan aqoon u male waxaan ku bartay gurigiina ku barat yaa idinkeen waxa inoo keentay islaan asiga wareertiis oo eedadeedu macna gabar walaasheeda dhashay eedahay u keentay eedada qaraabo salaan u maaday eedada taa aqoon u malaha guriga saas ku yimid eedada ku soo galay guriga miya guriga eedada u maaday eedadana salaan u maaday gabar oo asiga wareer ay u tahay bartay eedada ayadana ayay u tahay waadanta aad maxaa qabataa aniga wax ma qabto saaxiib iska fadhiya ma shaqeeyo amal laana xamar jajab ma joogtido xamar jajab jooga xamar jajab maxaa ka qabataa xamar jajab bulkeetan xamaashta cara xamaashta dhagaxan xamaashta musqulaan ka shaqeeya ninkan waa la fahmayaa dambi laan baa ka hadlin horta caadi in lagu fahmo ka hadal macnaha
muddo aan isku dambeysay inaa qaraabana hal ii sheegay marka waxaa huweystay in ay faamo dhashay meeqa la joogtay wax yar la joogaan jaamacadda Geera ka soo guur ex control daynile hooyada magaceed hooyada Faadumo hooyada Faadumo leeyahay Faadumo maxamed xasan naanistaad maxaa leeyahay aamusan absalaam magaciisa saxda waa aamusan xaafada lagu bixiyay leeyahay sheekadan maxaa gurigaaga maxaa dejin kan guriga waa ka kireeyay laakiinse aniga inuu shabaab yaa ma ogin aan shacab ku ogaay shacab ma leeyahay ha yaa ku baracsiga gabadha saaxiibanahay salaan ugu tagay oo dirisna labada guri waa isku dhagan yihiin marka ugu tagay salaam waxay tiri wiil habar u ahay gabadha habar u ahay wiil ayay loo keenay tiri barsho wanaagsan aan dhawa ka soo tagay muddo ka soo wareegtay hal bilo oo marka guriga markoo imaadeen labada isla imaadeen isla soo dageen ka bacdi marka muxuu ahay shacabnimo amreenan shabaab amreenan yaa isla soo dagay guriga ma qof ku soo askaligiis hal qolood diinay yaa la asiya u maahay qof u maanay malan koronto loo ka shaqeynay lay ku ogaan bas koronto leen ku arkay ka shabeetiyaal iyo soo wada bas wax kale guriga xataa koronto lee laga arkay wax kale laga ma arkin been ahuur waa inta kale qofta oo ayay u ah dhehayso qoftan kula fadhida miya yaa wiilkaas kale maxaa isku tiin adiga waxa ma isku nii gabadhan saaxiibana eedo يعني درس يجينا أهان اسكو ميلان كسو كورني أني قبلان ساسا مركا حشمت أهان وهبرير إيدها قبلها سوا حوا ها دقمد وقتها قولها دي لكريها والله شاقة دقمد ولا جاي محق جيويس لا أنا خاف اسكدرو في سنة هاي إنك سو دقمد أهان جين هذا نقف كان قول مركز ألعاب أو لصوب القحي أو قول لكيني سهاي سيدي إسلامي ما يو درس على بدي أنا كسو دبيان ما يقول كل دقيقة بلاد هل بيل وديب إيده فاي وديب الشباب كأوش قيس هلا ولادي aniga maya haye ani shabaab iyo aniga wax isku niye ay miskiin wuxuu gad ku shaqeysaysan ahay waxa ka shaqeysaa camba dhanaan iyo ladi iyo qumbe iyo miiska soo qara aan ka shaqeeyaa ani dhar dhaqo aan ka shaqeystaa ani waxaan shaqadeeda ma aha أولاديدا وشقيستا وحماشتا أنا. شيكادا أنت كاسو قشني nimanka inta ka soo raacay. Nimanka wiilashaas. Wiilkaasa. Horta labada wiil ba ka shaqeey. Absalaan horta ayeeyaa u ahay. Ayey sidee? Ayeey koraad. Ayhe. Islaan oo abaayde oo iga been gabadheeda dhashay. Marka habartiisa soo la joogay, habartiisa akaskii waa la dudumiyay. Macnaa wuxuu dhahay guriga rabaa. Marka waxaan dhahay xaafadan gurigiis waxa ijaara waxa loo dirsadayaan dhahay dalaal. Ijaar lama loo ijaaro. waaye haddii saaxiibtaa guri iska banaaya waa ii weydii marka sidii iyada oo weydii waxaan hadda la sheegoyna aan wadla kulan la ilaa maba uga baan aleeka alba aan shacabna ma leeyahay aan nin koronta ka shaqeeyahay uu ahay nala la sameynay wax kale kuma arka Abdi Nasirne Abdi Nasir wax kale inta ku ogaan Abdi Nasir guriga ma ku noolaa gurigaas ku reesay guriga ku reesay أنت وكريسيا؟ حافظة وكريسيا ناقو قبا. أنت وكريسيا؟ حافظة. قرقة مو دناك دقيقة؟ مايا دناك كله أنت. ليلة مو دقيقة؟ مايا. قرقة كله أنت حافظ لملك أو كميت. حافظ مال أو كميت أصدقائي. محوق بتاع سجن. بلوكات يوم مسؤول فاجو. عبد الناصر قرمي أركت هذا أبرد. عبد الناصر. محاوطة بتاع سجن. ولا كي هذا. هذا ولا كهذا. المعذرنا. قرمي أركت هذا كوريس. الصيارة يبدأ بيسان. هذا محل السحر حرق محكين. والله حرق مشي كر والله. حمد شريف كرنت يلا. أصوريش تسوي. أنت جبتها. حمد أكسم كوجان. هناك قلتنا إذا كنت مشي كر. عبد السلام وعلته. حمد شريف كرنت كذا منه تادي كمان. ما دمين. هذا قروا يقول لك ما تجي. أنا ركينيا هاي كينيا حقصة برتي. سكول أو كينيا كيا لا حقصة برتي نقحتي. eedeysane cabdulaahi cusmaan maxamed ku biiristiisa khawaariijta ayaa isna ahayd 2015 goobtana degmada janaale waxa uu tababar jabhad ah ku soo qaatay deegaanka farsooleysa la mid ah eedeysanaha koowaad cabdisalaan ayuu soo maray buraha goolis ilaa degmo xeebeedka galcad oo ay isku barteen labadooda ilaa lagu wada qabto dagaal 3 maalin socday ayna ku baabaaday argagixisada eedeysanahan inta uusan dhamaysan xukun 5 sano ah isna waxaa loo wareejiyay xarunta dhaqan celinta Elmenbees oo uu ku bartay farsamooyin iyo shaqo abuur ay bulshadu ugu dhaxnoolaan karo balse isna dib ayuu argagixisada uga laabtay magaalada Muqdisho ayuuna hadda ka shaqeynayay isaga iyo eedeysane Cabdisalaan ayaana ku kulmi jiray bakaaro uu ku lahaa ganacsi qudaar ah si loo kala warqaato shabaab taa lagu dhahay garacada ilaa garacada soo dagaalanta haddana dagaalkan waa lagu qabtay kadib markii baxdana haddana waxa lagu haystaa inaad hadda la shaqeynaysi ninkaas odaga ah door sharciyan qabaa gudoomiye aye mudan gudoomiye anagoo dhalinyar ah oo caruur ah aan wali wax qaangaar aan gaarin ayaa cidda shabaab ay macalinkiin xariir la yeeshteen kadibna macalinkii markay xariir la yeeshteen waxay isku dayeen in anagana afduubtaan ayna wadaan qoladii oo Puntland maart xeebeed aynu tuuraan
xeebihii Puntland markiin tagnay ka bacdina waxaa imaaday in anagoon dagaal aan aqaanin aan wax ka seenin ayaa weerarkii meel uu dhacay weerarkii markuu dhacay kadibna anagana godkaan ugu tagi ayagana waanay kala dhuuntay raggii oo weynaan oo meesha naga watay guriga naga watay ka bacdina anagana waxaan sameynay inaan baxnay nin herbaadi ah oo tuulada joogo ayaan u tagnay walaalo unug waa dhunsanahay xaafidiina lala soo watay doonaan lagu shasho halkaan aan lagu soo daadiyay ka bacdina wuxuu yidhi waxaan ii geeyaa dowladda aan ii geeyaa isku dhiibal diyaar waan keen waa dowladda aan loo qaaday saldhig oo garcad ku yaal maarta aanu ugu dajiyay marka aanu garcad waa garcad ha saldhigeed aanu geey markaas dowladda isku dhiibay marka noo caruur yar bas dowladda markaas isku dhiibay kadib waxay dheeday insha Allah waalkiina lagu wareejinaa waxaan il barayaa kadibna wax waaye familkiina una qiisiin dib alu naqanin saas kuwaada إن شاء الله أنا بس وأنا خنعين كبعد مركي عبارة عن جوجني وحنا الوريجي هذا الجرو حبسي جرو أنا الوريجي بس حبسي جرو سان أو جورني اللي حبلوت مركا كوجن كبعد هو الشيء اللي قالي حانوا لي حاو باهنتين حاربنا أنا ما أنت وخلدومني هالكيني وأنا الصوادي فملكين أنا قاعد أحجران أنا الصوادي ده أنا صاف دوبته حيوان أنا وش شوين كبعدين ملا قاعد أنا تجين أنا كنا وان دالي كبعد ولد سودي بلمر أنا واحد مقام كورن وعرور أسكن عماه بعسنا كبعد أيقن واحدين هتسجع شينا ولا هنا واحد برنو فملكين وإحنا نقصميه سان هول أخوانه وكالمينه أنقرب سين والدكين هاي أمريكا أنا الغادي كتبنا ساعة عبارة وجوجني كبعد محكمة أنا صوب حد مرك إنه الجيو محكمة دي إنه الجي كتبنا وحنا لي نقار وحال وصو ذيجي قبل كبنادر عرورت أو كير طبعا يشنجر إنت كير لبي طبعا جركة بنادر الوصورجي ويكل أنا حوات من تضبط من لحت من شن عملوا خالمين أنا جا مركز وحنا وصوب بحد إنا وحبرش نمسيو رجعنا نقلنا بس شن سنة خورنا نقولي مركز شنتي سنة لبس سنة حبسي وقاذني كتب الدولة وهذه عفسر عفانا إذا مفرتي هاد وحبرش دي صوب بحد ومهم وحبرش يا صودا مست حبرت وحن برتي قرآن يو حساب يو فرسومال سلوقرة يو عربية أنت صبرت إيوه مادوي كرنتظل وحرحرة إيوه مادوين كموبيل على وسمايو إيوه هرقامات ركس على وطله علي صبري مرك ما ملك بدلنا إذا برا مياه ما ملك بدلنا البرها مركي هذا أنا قريت جماينو يدرد وحوي أكسن وسمسه هي هذه أمريكا أنه وصل دمستر مركي وحي كلو أنا قد مناي الحمد لله ما أنت وحما هالسنين حتى أيه وإحنا صبرين أيه فكرة إيوه أخلاق شخص نسيان كدبنا مركي عبار عن شتى سنة مركز دمسني عفسكيو سين والدك ورجله فلكت على جلوم والدكي ورجل تود على جلاس ما مركز كبعد عن السوق هذا حمر عن الكيني حمر كي مركون الكيني ديار عن الصار حمر عن الكيني ميل أو هذا أو أيقر نفترق أو حرير إسليين أي نمسودجين أو هيمال كت هيمال الله مع هذا لكن ما يحساس مقررين أنا مركز أنا نمسودج سوما أسبوع عمله جوجني كبعد إنه فميل كانوا قبع مركز كالي ماذا يوه لابا أمانك أو مش كدو أي وعد إذن كدي بانو السوسيبري ديارة كيستو أو دوالك أو كاميرا دمارت أي نودو دوين تسفميل كانوا قريجي مردم بشباب يالو نخنن الدينا وحو قبصة أي جاي مبان واي بس أنا قا بس فميل كي مركا أتكني بيرهي يو حولي يو وحيا وصونا خمسة مال دقو عيني أنتو كمان في عيسو حمر آد وح قبصة wax shaq waa taqaan daa xirfad waa kasiisa arqaan waa kasiisa koronta soo bartay ee xamara shaq loo raadiyaa leeyahay jinaal joogis kuma taalo waay jinaal familkii cidii haasata ma haymar looma naqkor waxa iimaanis in loo qabto oo la jiljilo waxaan aadan waliyood ay ku siinay dhahan qor i boosh ee adduunyo aku iimaanisay bas waa ka dhuuman mo aniga xamarkii ay imaad xamarkii asan uu shaqaysanay waa tii hadda oo laamaha nisa iga soo qabeysano oo joogo booskii ganacsiga oo qudarta qudarta iska joogi qudarta iska gaday kadib waxa la dhayay waa aniga wiilkii abto ahayn laba ahayn xaga tagan istaag xagan tagan waa istaagni kadibna waxaan leeyahay mobilin soo diiban leeyahay mobilan soo diiban intu jeestan leeyahay inta jeesan kor u qarshaati kor u qaadnay abaare madax isku gashteen yahay si wax jira amalan leeyahay hortiin qaban leeyahay qudarta yaa lagu dhaafaanay shuuta idin siyaale qudarta ya qudarta yaa lagu dhaafaanay iskan خرشة فولو العجا مش تالو يلو دافع مركي العجت مش لو صوت شو تاوك سينا العجت هذا شو ما نسينا ها بس صباحا شو تاوك سينا العجت هذا يو قدرت العجت أي يدو أسكرت نسوى ذات
ay shoot ma siinay haa way dib malana keeno mar waxa la keen laamaha dambaarista nisaali keeni bisidii xogtiisa ay tahay la uu sheegan ani shabaab ano yar caruur ay iga wadatay guriga dugsi dhigaayo la meelaas budlaana ay u shubtay kadibna xabsa ay geeyaan 5 sano li xukun waxbarashaad soo dhameystay maasha حق مركز لقى سوي رجي حمرا لو كان مركز حمرا لو كان يا لو رجي اد لو رجي يا اد همل الله مقعد هملو aan ku magac leenahay deenay aynu xiribta ina wax barashad ku inuu bilaabanayeen ana waxaan wax soo baranaa deen hadan xil oo qaan gaar ah naqani waxa u baahanahay familkeena inaan wax u tarno ee meesha wada markii la idin fasaxay jana la u laabatay jana la u laabatay markaa soo laabatay ku xamar ka shaqo bilaawday xamar gaargacna ka bilaawday gaargacna ka bilaawday nimankii iyaga ahay oo shabaabkii wili dib kuna soo xiriirin miya ma shabaabkii barnaamijkii dhan macna xeebta ka soo marnay jaziiro taag soo galnay يا الله نولد حمر يا كل نولد حاسكي عدي فاميلكي يا كجير انت دقنت دينينه عرور ما لهدا دقي صدق عرور ليا يا شقينيس انا شخصيغا شقيسناي ميسك انا اسكله خضارتنا الناس انا سو غدو معناها قدس وينو معناها بيع يراب سو غدنا بيشان صارنا وحو الهي سخر المي iyo xaaskiyo ku biilnay hal uu sheeg markii marka hadda lagu soo xiray maxaa lagu sheegay inaad ku xiranta ila macnaa waxa ina hadda ku xirna waxa li sheey ina marka aan oo ilminka ay dhaheen الشباب تين سنة أنا شباب أنا يرى جورجي أنا ويلك أبتغ أهي مجوا ويلك أبتغ ويلك أبتغ والدي والدي ها عنقاس والدي عنقاس شباب برنامج كي مصوب حنا رجال كلا تتصرع على المك رجال حبسيجا أنقارك أيوة حب حرد مارت هذا درب دير أيوة جوان أنقارك كوان ما يا شقون جبتون أيام حق اللي جبتين كوانا كوان كمجرد hadda waxa gidis ya shaqaas ya kusi oo qudarta shaqada ana iska leeyahay gureem gaargacana ku shaqaystay marka lacagta gurubsadii kadibna waxaan gal gedisan galay eelkaaga yaa ahay xamar joog eelkiya ayaydiya joogto eedidada ay joogto xaaskeyga joogto guriga marka ku degto ku noolad yaa lahay guriga dada iska lahayn akris la maro ka hor ayada yaa la degtamo yaa la nooleed ka hor ayaydi la noolay inta wilna guursanayay markii xirfadii lagu baraa shaqo ku bilawday كدب شباب ملابن ميادي حبت شباب حتى علمت وملابن أنا أيدي أبدو قيس بجيسي يقدم التيه حاولها ما بقولها به عبد الناصر عمر أحمد زبير إذا سنهان إسنا وحال قريه ونقوارج نقضي لوضا كرشان يتوانكي قوبتنا وقريولي kuwa xaafadaha meereysta dadkana dhiba ayuu ka ahaa deegaanada Gaawarow Hadoomin Farxaan iyo Jeelow ee hoostaga degmada Qoryooli ee gobolka Shabeellaha Hoose haddana waxa uu xubin ka ahaa qaybta sahanka iyo indheynta eedeysana Cabdinaasir Cumar Axmed Zubeer ayaa isna ku soo barbaaray hooyga eedadiis aabba la dhalatay eedeysana Faadumo Axmed Zubeer ilaa uu ka guursadana uu la noolaa adina shabaabata lagu haystaa Gaawarow Hadoomin Farxaan Jeelow meelaas ma ka shaqeysaan kuma jiraan meesha aa ka soo qabat meesha aniga xisba ayaan ka ahaa xisba ka goorma ka naqad anigoo yaraan naqdaniyo marka waalidkayga iga soo bixiyay kitaab jaamacan ku dhaartay waa ka toobad keenay magaaladeedan dhinac ka galay maan u laaban hadda maxaad ka qabanaysaa hadda wax shaqaan meeshaan ka qabanaya ma jirto baalgamoodaan iska ah yaa la joogta xamar ka imaad hadda xamar markaa imaanaya ehelkayga la joogay yaa jooga ku nool ehelkaaga ehelkayga waxaa ku nool abtiyaasheeda awreeriyaasheeda adeeradeeda aabaheyga yaa la joogta adiga dadka iska dhaafa qof tilmaam yaa la joogta aabaheygaan la joogay ada abaha ma joog xamar haa daa'imaatay maxaa u dhiibays dawladda u sheegaysay ilaama amniga meesha waa ka soo tag u dhiibays waan gadoomiynaa isku dhiiwaari ilaama amniga ee macnaa qaabka sirta meesha oo soo maran ka soo macnaa soo dhiibitaalka meel aan soo maran aan fahmi waay xogo baqdinay ugu jirtay meel aan soo maran ka soo hada waalidkaaga ba kitaab ugu dhaaratay waxaan isday بس إن شاء الله إلهي يكون معي أذيقنا معنا وحاسد ذاك توبك أنت لما أبنينا ميلا أمر السياسة ميلا أمر كسوي قال لي ده عندنا عكاك أنت دقمة حمر جب baraha sirdoonka Niza ayaa daaha ka rogay xogaha dahsoon ee kiiskan kadib baaritaan dheer oo qoto dheera isagoona garsoorka u ifiyay natiijada baarista ka soo baxday xeerlaaliye gaashaan la dhexe Axmed Cabdallah ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday in qodobada eedda ay ku qaado eedeysanayaasha noo gudoomiye Cabdisalaan argixisadu wuxuu ku biiray isagoo aad u daayar ayuu ku biiray ilaa iyo hadda oo 23 jir uu ka weyn yahay ayuu argixisada ku jiray shaqooyinka uu u soo qabtay argixisada waa shaqooyin tirabeela ilaa heer dagaal uu ka qayb galo ay gaartay eedeysanaha tababarka markii uu ka baxay waxa loo diray inuu ka soo oo deegaanada maamul goboleedka Puntland
balse eedeysanaha mar alla iyo markii uu doonta ka degay waxaa halkaas kula kulmay dagaalkaas ayaana lagu qabtay mudane gudoomiye eedeysana cabdisalaan maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Puntland la saaray waxaana lagu xukumay 15 sano oo xabsi ciidan lagu xukumay eedeysanaha isagoo dhameysanin xukunkaasi ayaa muddo 2 sano markii uu qaatay waxaa loo soo wareejiyay qayb dhaqan celin ah qaybtii dhaqan celinta ee loo soo bedelay eedeysanaha wuxuu ka kororsaday inuu xirfad ka helo meeshaas xirfadan korontada uu leeyahay injineer koronta noqday waxaa lagu baray halkaas lagu baray oo hay'ad iyo NCR ayaa bartay mudane gudoomiye eedeysanaha asagoonan soo dhameysanin qaybtaas dhaqan celinta ayuu ka soo fakaday darbigu ka soo booday uu soo fakaday dib u argixisada al-shabaab ugu laabtay al-shabaab mar labaad waxay u dirtay inuu tago buurleyda calmiskaad inuu tago halkaas uu tagay wuxuu ka noqday macallin tababaro ka noqday sababtoo ah nin eedeysanaha oo dagaal ka soo qayb galay dagaalkii lagu qabtay xabsi soo galay ka soo fakaday argixisada waaba u bogeen waxaana laga dhigay macallin tababare oo inuu juniorka argixisada ah tababaro ayuu gaaray sidoo kale wuxuu argixisada ka caawinayay intii la joogay calmiskaad sahanka ka caawinayay marna wuxuu aaday dhankaas xeebta marna wuxuu aaday deegaanada sahankaas oo dhan wuxuu u gudbin jiray argixisada u gudbin jiray eedeysanaha wadana gudoomiye eedeysanaha waxaa loo soo wareejiyay magaalada muqdisho intii uu joogayna wuxuu ku sahmiyay goobo dadweynaha shacabka Soomaaliyeed ay ka qaataan ee dhikaaradan niiraha muxuu ka faa'iidayaa in shacabkaas Soomaaliyeed qaraxyil la beegsado ayuu ka faa'iidayaa eedeysanaha horta mar alla markii ra'iisul wasaaraha uu ka amray in laga qaado dhagaxyada yaalo jidadka eedeysanahan oo wato mooto argixisada ay u gatay mooto feekon waxaan ku soo wareejin doonaa mootadii waa haynaa maxkamadda ku soo wareejin doonaa asagoo wato mooto feekon argixisada u gatay ayuu wuxuu ku soo wareegayay meelihii laga qaaday dhagxanta meel hiblaayo waa laga qaaday horjoogiisa u gudbinay sidoo kale wuxuu tagayay meelaha lagu bixiyo ee dhikaaradan niiraha meel walba uu tagana wuxuu ka dirayay location wuxuu ka dirayay GPR location uu ka dirayay si halkaasi ee argixisada ula beegsato qaraxyo ee u beegsato eedeysanahani wuxuu halis ku yahay mudane gudoomiye shacabka Soomaaliyeed ee nabadda iyo barwaaqada iyo bashbashta isaga jirto ee ay dhikaaro aqoonsi ay dalka dibadiisa xataa uga anfacayo meel ay ka qaadanayo eedeysanaha wuxuu qorsheynayay inuu qaraxyo ka geystaba mudane gudoomiye eedeysanahani wuxuu kaloo gudbiyay saraakiil guriyo ay degan yihiin magacyadooda nambaradooda xitaa dariskiisa kamid ah leeylo guriga dariska la sarkaalka deganaa uu gudbiyay eedeysanahani waa eedeysana halis ah mudane gudoomiye eedeysanahani hadda shabakadan la soo wada qabtay oo dhan isaga sabab ah Cabdullaahi in la soo qabto asaas sabab ah oo sheegay ninkaan isku meel aan joogi jirnoo yiri calmiskaad waxa iskala soo dagaalami jirnay Puntland iskala soo dagaalanay xabsi isla soo galnay hala soo qabto kaas asaas sheegay asaas soo qabtay isku guriga degan yihiin labadan kale asaas sheegay asaas soo qabtay maanta maxkamadda markii hore soo istaagay wuxuu yiri aniga ahaa shib waaba aamusiib mudane gudoomiye hore uga taxadarnay 28 bishii koowaad annaga garsoorka hor keenay waxaana ka qornay qiraal maxkamadeed oo 3 page wuxuu ku faahfaahiyay asal shabaab min bidaaya ila nihaaya eedeysanahani mudane gudoomiye dagaalana uu ka soo qayb galay intii xargixisada ahaa inta magaalada muqdisho uu joogana inta xog oo gudbiyay 20 kore u dhaafayaan oo argixisada al-shabaab uu gudbiyay qaraxyo qorsheeyay dilal qorsheysan oo qorsheeyay wuxuu kaloo qorsheeyay in tashkiilin oo qorsheeyay jackpointiyada magaalada muqdisho ee argixisada ay soo gali waayaan waxa jirto jackpointiyada eeyaa lagu soo kordhiyay eedeysanahani waa baxay uu tagay eeyi sawirro ka soo qaadaya argixisada u diray wuxuu leeyahay meel hiblaayo halis waa eeyaa joogan meesha eeyi joogin uu sheegaya argixisada uu gudbiyay mudane gudoomiye shaqooyinka argixisada aysan u dirin oo iskiis u qabsan maxaa kamid ah mataqaana gabar feeriyahanada oo Soomaaliyeed oo Ramla la yiraahdo oo magaalada Muqdisho soo degtay dalkeeda u soo xiistay oo wuxuu gudbiyay reportkeeda gabar Ramla la yiraahdo Mareykan ka timid camal maxaa ka galay macnaha amni darro inuu dalkan ka dhiga bis le waay
inuu dadkan Soomaaliyeed oo farxadda ku jiro iska nashaada uu laayo leh waa mudan gudoomiye ninkani waa halis mudan gudoomiye Cabdisalaan ay leeyihiin mudan gudoomiye Cabdisalaan eediisa hadda intaas uga baxo waxaan rabaa Cabdullaahi Cismaan Maxamed maxkamadda horteeda qaraal uu ka bixiyay eedeysanaani wuxuu ka tirsan yahay argixisada al-shabaab tababaro soo qaatay shabaabka waxay u direen galcad iyo meelahaas wuu ka dagaalamay soo dagaalamayna la qabtay mar alla markii la qabtay 5 sano lagu xukumay 5 sano isagoo dhameysanin waxa loo fiidiyay cafis oo ah in dhaqan celin la geeyo dhaqan celintana si sharaf loo soo dhameystay oo waxa maxkamaddu ku wareejin doonaa shahaadadii uu halkaas ka soo qaatay dhaqan celinta la sheegay horta wax laga dhaqan celinayo waxa waaye in bulshada Soomaaliyeed ee la dhaqan gali karaan in dhagarta argixisada laga bixiyo sunta argixisada laga bixiyo daroogadii argixisada ee laga saaro Cabdisalaan laga ma saarin sababtoo ah darbigu ka booday wuu fakaday asoon dhameysan oo fakaday Cabdullaahi waa laga saaray laakiin Cabdullaahi mar alla markii dhaqan celintiisu uu dhameystay magaalada Muqdisho iska yimid xoogaa markii dhaqan celintu ku dhamaatana xoogaa yar waxa lagu siinaa qadaadiic oo wax ku furo kartid ama miis ku furo ama arqaan ku sameeyso ama wax ku sameeyso dawladdu way ku faa'iideynaysaa mudan gudoomiye isagoo iska shaqeysanayo ninkaas kale ee wax isku arkay suuqa bakaara kaasa tashkiiliyay inuu dib ugu laabto argixisada kaasa ku tashkiiliyay Cabdisalaan ku tashkiiliyay Cabdisalaan oo xamar loo soo diray oo istidlaac loo soo diray oo basaasnimo loo soo diray suuqa bakaara ku arkay mar labaad oo shaqada ku laabtaasna eedeysanaha saddexaad hadaan galo oo Cabdinaasir inta shaqada ay isla hayeen horta isku guriga deganaayeen Cabdinaasir marka hore wuxuu ka tirsanaa kooxda argixisada al-shabaab sida hadda maxkamaddu ka hor sheegay qayb la yiraahdo xisbo ay ayagu u magac daraan laakiin dadka garaacdo jidkaas dheer ee Muqdisho iyo isku xira gobolada taagan baabuurta dad ka soo dejiyo ee garaacdo ee dadka sida dulmiga u disho dadkaas oo ka tirsanaa eedeysanahan hadda waxa laga yaabaa inuu ku doodo xisbo dadkay salaad u tuntaa wax ka jira malaha eedeysanaha hadda bateerna jooga bateerna meesha la yiraahdo xashiishka lagu cabo oo jooga ku baashaala soo argixisada meel ay salaad ee dad ku tashkiilinaysa ma jirto dadka masaajidka dadka ku dhex dilayo waay dadkaas ma macnaa salaad dad ku garaacay waa may dadka garaaco oo dhibaateeyo oo tumo oo ku jira eedeysanaha halkaasi inta asoo jooga ayaa waxa loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho qaybta basaasnimada loo soo wareejiyay indheynta inuu meelaha soo indheeyo meelaha ay rabaan inay qarax ka fuliyaan isaga iyo eedeysana Cabdisalaan isku guriga deganaayeen hal guriga deganaayeen guriga waxa iska lahaa Leylo guriga Leylo deganaayeen halkaas ay gabaad ka dhiganaayeen labada eedeysana mootada feekonta oo shabaabka iska leedahay ayagoo saaran ee istidlaac soo wada sameeyeen oo degmooyinka Xamarjab degmada Xamarweyne Shangaani meelahaas oo dhan ay ku wada tageen isku shaqay soo qabanayeen istidlaacaasina soo wada sameeyeen mudan gudoomiye inuu argixisada ka tirsan yahay isaga qirtay mudan gudoomiye Leylo waxay iska leedahay guri degmada Xamarjab ku yaalo dawladda sideedaba habraac ay sameysay oo dadka milkiilayaasha ah ay guriga markay kireynayaan inay amni ahaan security ahaan degmada geeyaan qofkaana guriga kireysan rabo process la marnaa bas tartiib u dagaya laakiin way ka qarisay oo meesha marsiin degmada Xamarjab taas waxay cadeynaysaa inay ogeed inuu ninkan al-shabaab yahay way ay u marsiin weysay intaasoo qof oo guriga soo degi jiray waa la marsiin jiray way kan ay u marsiin weysay Faadumo darteeda ku dhaafay tiri maanta Faadumo ka badbaadiso waa ku jirtaa nin argixisa oo al-shabaab oo xitaa dariskaaga gudbiyo xogtiisa inuu nin sarkaal ah degan Leylo guriga ku dhagan yiri ayaa maanta gurigaaga deganaa haddaba mudan gudoomiye Leylo waxay gabaad siinayso xubnaha argixisada ee ku dhuumaaleysta magaalada Muqdisho habraaci dawladnimada ma aysan marsiineen Faadumo si lamida waa ayadana labada wiilba waa niman argixisada al-shabaab ka tirsan iyada anaa habaryar u ah dhahday soo degsatay guriga Leylo ku qarisay labadaba way ogeed in al-shabaab ka imaadeen Faadumo way ogeed in Cabdisalaan al-shabaab uu yahay because habaryartiis ayaa soo damiinatay oo ka soo wadatay mar alla magaalada Muqdisho markuu soo degay asagoo yar oo xabsiga ka soo baxay Garoowe habaryartiis ayaa meeshaas ka soo wadatay ku haysatay ex control tan ay ku soo wareejisay markii xagga laga dumiyay waxay ku soo wareejisay Faadumona si tartiiba ayadoon marsiinin habraaci dawladnimada ay waxay u dhiibtay Leylo halkaas dhagarta laga fulinayo labadaanba argixisada ay gabaad siiyaan mudan gudoomiye haddaba mudan gudoomiye mudan garsoore maxkamad sharafta leh waxaan maxkamadda sharafta leh si xushmad looga codsanayaa in eedeysanaha koowaad oo ah Cabdisalaan Maxamed Xasan Xuseen Aamusane lagu naanayso
sidoo kale magaciisa afgarashada uu yahay mahad oo argixisada looga yaqaano sidoo kale magaciisa afgarashada uu yahay cabdinuur waa saddex afgarasho oo argixisada al-shabaab ay u yaqaanaan eedeysanahaani midba markoo midkaan fashilma aamusana markoo fashilma mahadaa lagu shaqaynayay hadda markii ugu dambeysay aamusana ku shaqaynayay laakiin mahad wuu soo isticmaalay cabdinuur wuu soo isticmaalay haddaba mudan guddoomiye cabdisalaan maxamed xasan xuseen bacdamaa uu ka tirsanaa muddo dheer argixisada ururka argixisada ee al-shabaab uu ka tirsanaa dalkan Soomaaliyeed iyo ummadan Soomaaliyeed dhibaato u geystay ka soo dagaalamay deegaanada Puntland buuraleyda Almiskaad sidoo kale magaalada Muqdisho amni darro uu ka sameeyay bulshada Soomaaliyeed iska faraxsanay nabadda ku jirto ee iska ganacsanaysan gudbinayo xogtooda amni darradooda ka shaqeynaya waxa maxkamadda sharafta la ka codsanaya mudan guddoomiyaal mudan garsooryaal in eedeysana Cabdisalaan ay ku xukunto dil toogasho ahna ciqaabta ka dhalanaysa qodobada aan ku soo eedeeyay ee xeerka la dagaalanka argixisada mudan guddoomiye Cabdullaahi Cismaan Maxamed iyo Cabdinaasir Cumar Axmed waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa bacdama argixisada ay ka tirsan yihiin bacdama hadda qaybta basaasnimo ee argixisada magaalada Muqdisho ku dhuumaaleystay ay ka tirsan yihiin bacdama Cabdinaasir uu xogaha gudbinayay si lamid ah Cabdisalaan oo kale waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in labada eedeysano ay ku xukunto ciqaabaha ugu adag ee qodobada aan ku soo eedeynay mudan guddoomiye mudan garsoore maxkamadda sharafta labada eedeysane ee dumarka ah ee ah Leylo iyo Faadumo waxaan maxkamadda ka codsanayaa Leylo si waafaqsan horta qodobka 25aad ee xeerka la dagaalanka argixisada bacdama gurigeeda ay gabaad ku siinaysa argixisada guri walbo argixisada ay ku dhuumaaleystaan gabaad ka dhigtaan ka maleegaan shirqoolo wuxuu xeerka la dagaalanka argixisada fasaxaya in gurigaas dawladda ay la wareegto waxa maxkamadda ka codsanayaa in guriga Leylo ay dawladda la wareegto oo hay'adaha amniga lagu wareejiyo rug laga dhiga meeshaas rug ciidanka nis ay leeyihiin ama booliiska leeyihiin halkaas laga dhigo si aysan bulshada Soomaaliyeed ee milkiilayaasha guryaha ah aysan ugu dhiiranin in gurigooda ay ka kireeyaan qof argixisada ka tirsan isla markaana habraaca ay balmariyaan inaysan balmarin araba habraaca oo habraaca lagu socdo oo degmooyinka la geeyo qofka gureystaha ah sidaas ay u dhicin waxaan maxkamadda ka codsanayaa in Leylo gurigeeda ku yaala degmada Xamar Jajab oo argagixisadaan ay seexinaysay gabaad ku seynaysay lagala wareego oo dawladda ay la wareegto hay'adaha amniga lagu wareejiyo sidoo kale Leylo iyo Faadumo bacdama ay gabaad siiyeen xubnahan argagixisada ka tirsan waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in ay ku xukunto ciqaabaha ugu adag ee qodobada aan ku soo eedeynay maxkamadda sharafta loo maadsantahay qareennada ayaa maxkamadda ka codsaday in muwakkiliintooda ay dib ugu celiso xuriyadooda maadaama aan caddeyn buuxa loo hayn bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan inta maxdar ku sugan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa qareen qaasim jiilaan maxamed waxaan qareen u ahay Cabdisalaan Maxamed Xasan Xuseen ayaan u ahay Cabdisalaan waxaa lagu soo eedeeyay qodobada ilaa 6 qodob qodobka 6aad 10aad 17aad 18 22 25 Cabdisalaan sida maxkamadda hortiis ka akhrisay eeda wuxuu ugu jawaabay 104 miihi anigana midaas ayaan ku raacsanahay waxaan u gudbaa difaaciga 116 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed Cabdisalaan waxaa lagu soo eedeeyay qodobo dhowr ah oo xeerka la dagaalanka argagixisada si isku wada mid ah waxaan isdul taagayaa eeda ku xusan xaashida eeda waxaa soo qaadanaynaa hadalka ah in eedeysanaha loo haysto inuu basaasayay xarumaha dawladda iyo saraakiil sarsare ayadoo loo adeegsanayo xarumaha soobiyaal iyo qarax hadalkaas ay xeeraarinta meeshan ka jeedisay ma aysan keenin saraakiil ay eedo kusayso magacyadooda ama xubnaha inta yihiin saraakiil bas laay xarumo ay sheegeen ilaa 4 xarumood marka hadalkaas waxaa xog sirdoon waxayna martaa ilaa 5 meerta meertada ugu muhiimsan waa intelligence cycle inay jirto security alert sida hadda ay dhacdo oo kale xalana ay soo diraan fariino ku saabsan xagga security-ga ma aysan jirin marka si waafaqsan qodobka 7aad farqadii 8aad ee sharciga nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed taasoo sheegayso waajibaadka ka saaran hay'adda inay la wadaagto macluumaadka dadka ay qusayso taasoo ah talaabo ka hortag ah
in hore loo sii wargeliyo mas-uuliyadda saraakiishaasi iyo xarumahaasi marka macluumaad ma jirin marka intaasi waxaa xujada ah ku ogeynaa xafiiska oo soo ogay eedaasi marka waxaa marag muujin ah in maxkamaddu ka dalbanayno teeda kale marag nool oo maxkamadda la horkeena ma jirto oo caddeynayo in ninkan cabdisalaan la yidhaahdo uu micnaha basaasayey ama indhiindheynayey saraakiil marka intaas haddaysan jirin eedda waxay ku dhammaanaysaa telling history in sheeko laiska sheegayo marka waxaa kaloo eeddu uu ku soo daray gebagabadiisa xeer ilaaliyaha qodobka dil toogasho ah eeddiisana kuma qorno taasi waxay ku ficneed inuu eeddiisa uu ku soo daro oo markhaatiyaalna uu keeno kadibna uu dalbado in dil toogasho lagu xukumo marka haddii aan aado gebagabadeeda 119 maadaama aysan jirin saraakiil iyo cid ka cabanayso indhiindhayn iyo isticlaalayn maadaama aysan keenin xafiiska xeer ilaalintu waxyaabo muujinayo waxyaabahaasoo idil waxaa maxkamadda sharafta leh aan ka codsanaynaa in cabdisalaan xuriyadiisa dib ay u siiso maxkamaddana way maasan tahay waxaan qareen u ahay eedeysanaha labaad cabdulaahi cusmaan maxamed wax badan ka sheegi maayo doodeyda si waafaqsan 116 mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh waxaan rabaa maxkamadda inaan usoo qadimo hadalka niyadsamida ahaa ee uu halkan ka jeediyey eedeysanaha aan qareen ku ahay cabdulaahi cusmaan ka sheekeeyey taariikhdiisii ku biiridda maaragtay kooxdan ka sheekeeyey xabsiyada uu soo maray maxkamadda la wadaagay xukun jideeyaal iyo waraaqadaha kale ee dhaqan celinta intaas waxa waaye waa si waafaqsan 162 oo ah in laga hadlo maxkamaddana loo bayaaniyo niyad samida iyo sida wanaagsan ee maxkamadda oo uga sheekeeyey taariikh nololeedkiisii isugu jiray asagoo yar in maaragtay la qortay la tahriibiyey dagaal lagu soo qabtay maxkamad ka mid ah maxkamadaha ka shaqeeya dhulka Soomaaliya ay xukuntay muddo 5 sano ah lagu xukumay 3 sano xabsi ciidan qaatay 2 sano dhaqan celin la geeyey xamar lagu soo celiyey waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan dembiyadii hore oo geystay oo ka soo bilaabanaya yaraantiisii asagoo under age ah iyo maanta asagoo weyn mudan gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh waxaan rabaa marka dacwadan maanta loo haysto eedeysanaha aan qareenka u ahay waxay ku noqonee dacwad labaad ama se waxay ku noqonee dacwad oogis labaad oo ah isla dembigii shalay oo maanta uu ka sheekeeyey taariikh ahaan in mar kale maxkamadda loo soo taajinayo in qof lagu soo eedeeyo hal eed ama hal ciqaab oo isla markii oo kale ah haddana waxa waaye waxay xadgudub ku noqonayaan qodobada xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 13 faqradiisa 3 ayay lid ku noqonee oo dhahayo qof markii hore maxkamadii ay ku heshay fal dembi lagu soo eedeeyey isla fal dembigaas oo kale mar kale laguma soo eeday karo haddii ayna jirin cadeymo dheeraada marka meesha aan ka duuleynaa waxay tahay gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh sida uu sheegay eedeysanaha aan qareenka u ahay suuqa bakaaraha ayuu xirfad ka furtay wuxuu noqday suuqley qudaar gado sida hadda baaraha hadalkiisa ugu muhiimsan oo sheegay waxa waaye asagoo suuqiisa iyo shaqadiisa ku jira in la soo qabtay oo falagaransi ahayn waxaan naloo cadeey waayey hal nooc ka mid a dembiyada lagu soo qabtay halkan waxaa lagu qeexay gudoomiye eedda waxaa ku qoran dhowr qodob mid ka mid a xilliga uu geystay ama goobta uu ka geystay laguma xusin marka maanta ninka la yiraahdo cabdulaahi cusmaan maxamed wuxuu u maxkamadeysan yahay dembi hore looga soo dhaqay oona mar kale ku noqonin in tuun ahaan laamaha amniga mar kale ay soo qabteen maantana isagoo eed caddeyn buuxda ku filan loo haynin oo maanta maxkamadeysan yahay taasna gudoomiye waxay xadgudub ku tahay qaanuunka caalamiga ah ee Soomaaliya qaybta ka tahay ee la yiraahdo sharciga caalamiga ah ee xuquuqda rayidka iyo midda siyaasadeed ee Soomaaliya ansixiday 1990kii 24kii January qodobkiisa 14 faqradiisa 7 wuxuu sheegayaa in wuxuu waafaqayaa xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed qodobkiisa 13 faqradiisa 3 oo ah
in aan qof laba jeer hal eed aan lagu maxkamaday karin. meeshaas waxaan ka tusaynaa guddoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh waqtigan ahay aawadeed in maanta Cabdullaahi oo halkan u joogo caddeyn eed aan caddeynteeda ku fileen oo la leeyahay waxaan ku raadinay Cabdullaahi qafi isla xiraa jireen markii loo tagana fala garan sameeyeen wax kale oo dheeraada oo hadda maxkamadda lala wadaagay oo intaas oo sheegay iyo intii asaga goobtiisa loogu tagay aan ka een ma jirto 119 hadaa u gudbo waxay noqonayaan mudane guddoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh maadaama Cabdullaahi yaraantiisii iyo waqtiyada uu soo qaatay xabsiyada kala duwan maxkamadda u faahfaahiyey eedda loo haystana xukunkeeda hore u soo qaatay wax hadda ku cadna ay jirin waxaan codsanaynaa si waafaqsan 119 xurriyadda Cabdullaahi in dib loo siiyo ayadoo maxkamadda tixgelinaydo dukumiintiyadii loo soo raaciyay galka ee tilmaamaya taariikh nololeedkiisii iyo xabsiyadii iyo dhaqan celintii uu soo maray bulshadiisana uu dib ugu laabto maxkamadda way maasantahay wabillahi tawfiiq. ليلى سيف فرح أحمد iyo Faadimo Cusmaan Zubayr Cali si waafaqsan qodobka 15 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed mudane guddoomiye garsoor ee maxkamadda sharafta leh maanta maxkamadda maxdarkan waxaa la soo bandhigay eed lid ku ah labada eedeysan ee aan qareenka u ah marka uu go'aalgalna mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh hadaa ka kala hadlo Leyla iyo Faadimo qodobka 162 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed Leylo waa maamo korsata gacantana ku hayso 3 caruur ah oo baaruhu kiiska xataa uu sheegay inuu soo arkay oo 7 jir ugu yar yahay 13 jirna ugu weyn yahay gurina ku haysato gurigaas oo ku soo galay dhaxal gurigaas dhaxalka ku soo galay ilmaheeda ku korsato cid ku biishii aysan jirin banaankaas qaraabo wax uga soo tuura maahane waxay Leylo fursad u heshay guriga ay deganeed qol ka mid ah banaan mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh qolkii asaga ahaa ayaa saaxiibadeed Faadimo waxay u sheegtay in kira loogu hayo haday kira u baahan tahay maxaa lagu kiriyay guddoomiyow waa wax cajiib ah $40 lacag ah lagu kiriyay guriga haday wax weyn ahaan lahayd macquulay ba ahaan lahayd waa $40 saasay tahay mudane guddoomiye gurigii isaga ahaa waxaa lagu soo eedeeyay oo leeyahay bas kale xbaarihii kiiska wuxuu soo istaagay habraaciyaysan marin inta kale waa ka fiican tahay qarax laguma arkin maleeg argagixiso laguma arkin fal ma lagu arkin wax lagu arkay male habraaci bas ee ag martay ha ahaato mudane guddoomiye xafiiska xir ilaalinta muxuu ku soo gabagabaystay wuxuu yiri qodobka 25 xeerka la dagaalanka argagixisada qodobka 25 muxuu dhahaa inuu si ka war haynaan buu maleynaa xafiiska qodobka wuxuu leeyahay xog ururin iyo basaasnimo laba farqadood oo marka leeyahay farqadiisa koowaad wuxuu leeyahay xog ururinta 5 sano waay farqada labaad waxay leedahay 7 sano ilaa 12 sano hadaysan ka dhalanin dhimasho cajiib waay guri halala wareegay ma ku qoran qodobkaas kuma qorna haddana muxuu yiri guriga Leyla halala wareegay gurigaas ilmaha yariiska oo caruurta oo marasta ay ku korsanayso gabadhaas garoobta ee gacanta ku haysato in la yiraahdo dawladda hala wareeg dawladdu waa ka hangoyntaa gurigaas oo kale inay qaadato uma qalanto saas daraadeeda mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh gabagabada iyo dooda inta ka dhiman waxaan siinaa qareenka saaxiibka maxkamadda waa mahadsantahay mar haddii aysan jirinin cid dhib khaasa loo geystay ama gurigeeda lagu sameeyey mar haddii aysan jirin qodob ku xusan xeerka ciqaabta Soomaaliya ama xeerarka gaarka ah oo ay jabiyeen waxaa maxkamadda ka codsanayaa kow waa gabdho masaakiina cashuur bixiyaala ilmaheeda aabba u ah hooyo u ah waxay ka og yihiin wiilashaas aysan jirinin bal iska badaaye hay'adihii baaris dheer markay ku sameeyeen ay aad ugu ekaato maxkamaddana waqti badan ay qaadatay in la soo saaro bal calaaqada isku xiraysa xataa wiilasha bal ilaa gabdhaha masaakiinta waxna akhrinin waxna qorinin inay fahmaan iska wadaaf sidaas daraadeed kiis ku adkaada hay'adihii baarista inay soo saaraan in maarata nimankaas iyo calaaqada ay ka dhaxaysa ayaga iyo ururka loo tiirinayo kiis hay'adihii baarista ku adkaata inay Leylo ama Faadimo ay soo saarto waa wax kaaf iyo kariyo aadna u fog Leyla waxay arki kartaa ama Faadimo arki kartaa wax hub ah ama wax qaranka lid ku ah oo la sido labadiina ma dhicin sidaas daraadeed waxaa maxkamadda ka codsanaya kow waxay xiran yihiin muddo waana qaadasho ugu filan kuna filan falka loo haysto oo ah habraaci ay mari waayeen ciqaab waa ugu filantaa intay xiran tahay
way ku waanaysa qaadatay waa waaye arag waxa sababay inay wadadan martana waxa waaye waa xamar jajab iyo waa beri iyo dadkii nadiifka ahaa oo aan xataa weligoodna qaxin weligoodna shabaab arkin iyo habdhaqankooda ayaa ku nool sidaas daraaddeed nadiifnimadii ayaa darajada soo gaarsiisay waxaa maxkamadda ka codsanaya galabta inay ilmaheedii ay xanaanaysato hooyo u noqoto aabbo u noqoto xorriyadeedii la siiyo faadumo sidoo kale faadumo waa qof ayadana sidoo kale iska daciifa xataa dhegaheeda sidii oo dadka caadiga wax u maqlaayaan ma u maqlaayaan waqti dheer inaan gelisi waaye fahmigeedu qof daciifa iska miskiina waaye ayadana hooyo waaye ilmo koriso waxaan ayadana ka codsanaya in xorriyadeeda la siiyo ay ku waanaysa qaadato qaraabo ay soo dhaweysatay culayskaas inay keentay laakiin ayada guriga kireysana ma jirto cid ay guri dajina ma jirto guri iyo ayadana calaaqana xoolana ma balaawo masaakiin sababoo dharka ay dhaqdo ku nool waay maxkamaddu waa maasanta salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh cabdinaasir aad markii loo jeediyey wuxuu ku jawaabay anu mihi sababta uu dhahayna mar hore ayuu kooxda iskaga baxay wuxuuna ka maqraati dhigtay aabihiis uu ku hor dhaartay cilada yartaa oo jirto waxay tahay processkii dawladda ay u dejisay dhaqan celinta ayuusan marin cilada kaliya ku dhagan laakiin al-shabaab ahaan inuu yahay asaga hadda maxkamadda ka hor sheegay inuusan ahayn mudane gudoomiye garsoore mar haddii niyad wanaagiisii iyo niyad samidiisii inuu waayo asagoo yar mar intay khaldeen xisbo u noqday ka soo laabtay waalidkiis ka soo ceshteen maadaama uu maxkamadda ka hor sheegay intuu soo dhiibay oo uu waalidkiisa uu gacanta u soo galayna uusan wax dhib ay uusan geysanin bulshada Soomaaliyeed uusan u geysanin maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa haddii uu aragto inay processkii saxda ah oo la rabay soo dhiibaha in la mariyo ka bacdina uu bulshadiisa lagu sidaayo maxkamadda waa maasanta cabdullaahi maxaa codsay maxkamadda maxaa ka codsay gudoomiye waxaan ka codsanaa xorriyadeyda inaan siisid dib aan u noqdo maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaa cadaalad gudoomiye maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa maadaama waalidkay iga soo bixiyey kitaab jaamacan aan ku dhaartay oo habraacinta iyo maxaan ku idhahdaa soo dhiibitaalka aan marin inay cafis ii fidiso maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa anaan in ugu filan waa arkay cafis aan ka codsanaa maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa inaa xorriyaddeena siiso gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdifataax aqyaar warbaahinta qaranka muqdisho